barnaamijkan gaarka waxaan ku eegaynaa saddex isbedel oo nusqarnigii ugu dambeeyay ka dhacay Ethiopia waa sooyaal xambaarsan waayo murugsan oo daarana furfuridda imbaradoriyad la soo falkinayay 120 sano ee ka sii horeeyay. waxaan si kooban u dul istaagaynaa waayaha iyo wacaalka Ethiopia laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 19aad ilaa xaaladda maanta taagan. bishii Abriil 2014 ayuu bilowday gadood teelteel ah kadibna isu rogay burkaano qarxay oo galaaftay hoggaankii siyaasadeed ee Ethiopia. 4 sano kadib Abiy Ahmed ayaa noqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abriil 2018. muddo ayaa ka soo wareegatay intuu Abiy Ahmed xilka hayay, walina xaaladda Ethiopia way heehaabaysaa. mararka qaarna waxaa laga cabsanayaa inay faraha ka baxdo oo hadda xaalkeeda lama saadaalin karo. iftiiminta xaaladda taagan ee Ethiopia iyo dhacdooyinka ku xeeran waxaa muhiim ah inaan dib u milicsano taariikhda Ethiopia iyo dhismaha imbaradoriyadii Abyssinia-da cusub laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 19aad waa sanadkii 1855. waa sooyaalka muddo qarni iyo bar ka badan kuna astaysan kalamaan xididaystay iyo loolan qoto dheer. nusqarnigii ugu dambeeyay imbaradoriyadda Abyssinia waxa ku dhuftay mawjado isbedelo barkulankoodu yahay furfuridda imbaradoriyadii Abyssinia ee soo dhismaysay muddadii 1855 ilaa 1974. saddex isbedel ayaa ka dhacay 1974, 1991 iyo 2018. waxay bedeleen hanaanka dawladeed iyo siyaasadeed ee Ethiopia. saddexdan isbedel ayaan mid walba si kooban u sifaynaynaa. isbedelka koowaad wuxuu ahaa 1974 wuxuuna ku astaysnaa tirtiridda hanaanka boqortooyada. boqor Haile Selassie wuxuu dhaxlay kursiga imbaradoriyadda Ethiopia Abriil 1930 waxayna militarigu afgambiyeen 44 sano kadib 12 Sebtembar 1974 waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay baabi'iyeen hanaankii boqortooyada dalkana u bedeleen jamhuuriyad. militarigu waxa ay dhidbeen kacaan hanti wadaaga. waxay wacd ku mareen inay Ethiopia ku dhaqaan mabaadi'dii Marx iyo Lenin ayna dhisaan bulsho horu socod ah. qaab dhismeedkan jamhuuriyadda kacaanka ayaa lagu sargooyay dastuurkii Ethiopia ee 1987. kacaanka militariga Ethiopia waxa uu caan ku yahay magaca dergiga oo u macno dhow golaha sare ee kacaanka. isbedelkan wuxuu burburiyay tiirarkii ay ku dhisnayd imbaradoriyadii Abyssinia-da wuxuuna tirtiray hanaankii boqortooyada dhaxaltooyada ahaa. dastuurkii 1987 wuxuu qiray in Ethiopia ay ka kooban tahay shucuub ama quruumo kala duwan ayna ka dhaxayso dawlad mid ah. 2. waxa awoodda siyaasadeed gacanta ku hayay xisbiga shaqaalaha Ethiopia. qodobka 6 waxaa meesha ka baxay mudnaantii dastuureed ee ay lahayd kaniisadii Orthodoxiska. dastuurkii 1987 qodobkii 46 markii la tirtiray boqortooyadii Ethiopia waxay noqotay jamhuuriyad qof kasta oo muwaadin ahi dastuur ahaan uu dalka ka qaban karo xilka u sareeya. ayeeshe inkastoo taajkii boqortooyada meesha laga tuuray haddana weli waxaa sii socday hanaankii amxaaraynta oo shucuub kala duwan lagu beerayo afka iyo dhaqanka amxaarada. awooddii siyaasadeedna waxay weli ku urursanayd gacanta qoomiyadda amxaarada. midhaha ugu weyn ee nidaamkii dergiga laga dhaxlay wuxuu ahaa jamhuuriyad dadweynuhu wada leeyahay oo aan ahayn dhaxaltooyo qoys qoomiyad u gaar ah u xiran. isbedelkii labaad 1991 dawladdii militariga ee xukunka qabsatay 1974 waxaa ku kacay jabhado mucaarad ah oo hubaysnaa oo ku guulaystay inay xukunka ka tuuraan bishii May 1991.
waxaa xukunkii la wareegay isbahaysiga jabhadda dimuqraadiga ee kacaanka dadka Itoobiya ee Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front EPRDF oo ay horseed u ahayd jabhadda Tigreega ee TPLF Tigray People's Liberation Front. waxaa ku weheliyay jabhadda Amxaarada ADB, tan Oromada ODB iyo tan shucuubta koonfureed ee la yiraahdo SEPDM. isbahaysiga EPRDF waxay dib u habeyn ku sameeyeen hanaankii dowladda Itoobiya, waxay seeska u dhigeen jamhuuriyad federaal ah oo dimuqraadi ah. hanaankan waxaa qeexaya dastuurka 1995. waxay ka shaqeeyeen sidii ay xididada ugu siibi lahaayeen awooddii Amxaarada una joojin lahaayeen amxaarayntii qowmiyadaha kale ku socotay. Itoobiya waxaa lagu qeexay qowmiyado iyo shucuub federaal ah wada leh dal ka kooban dowlado states ama kilino oo ah 9 kilin oo federaal ah. koodii doonana uu ka bixi karo dalweynaha Itoobiya shuruud la'aan. dastuurkii 1995 qodobka 39 ayaa xusayay qowmiyadii ama shacabkii kale ee doonaya inuu dowlad gaara noqdo kilin gaara yeesho iyana waxaa ka xigtay afti dadweyne iyo raacidda talaabooyinka dastuurku qeexayo. waxaana wadadan qaaday qowmiyadda Sidama oo ah qowmiyadda ugu badan shucuubta koonfureed. aftidii November 2019 waxay u codeeyeen inay yeeshaan kilin gaar ah oo noqonaya kilinka 10aad ee Itoobiya. dowladdii ama kilinkii doona inuu ka baxo federaalka Itoobiya oo noqdo jamhuuriyad madax bannaan dastuuriyan way u furan tahay iyadoo la raacayo habraac ay ugu muhiimsan tahay afti dadweyne. wadadaas waxaa qaaday oo ku macaashay Eritrea oo sanadii 1993 noqotay dowlad madax bannaan. markaas waxaa jiray cahdi qarameedkii 1991 oo u xuubsiibtay dastuurkii 1995. waxaa intaas raaca oo meesha laga saaray amxaarayntii dhaqan af iyo wixii la mid ah dowladdu ay ku waday qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya. dhinaca diinta dowladdu masaafo isla eg ayay u jirtaa diimaha oo dhan oo ma jirto diin gaar ah oo ah diinta dowladda. dastuurka 1995 qodobka 11 ayaa qeexaya. waxaa halkaa laga saaray kaalintii madhabta iyo kaniisadda Orthodox ay ku lahayd dowladda ee dastuurkii 1995 uu ku nuuxnuuxsanayay. waxaa intaa raaca qodobka 27 in dadweynuhu maamulanayaan arrimaha diimahooda una samaysan karaan ururo iyo hay'ado uga shaqeeya. mudnaantii rasmiga ahaydna waxa laga xayuubiyey kaniisadda Orthodox-ka. hirgelinta qaab dhismeedka Itoobiyada cusub, jabhaddii Tigreega iyo isbahaysiga ay hogaaminaysay waxay ka shaqeeyeen taabagelinta tallaabooyin muuqda. waxayna qaadeen samaynta dastuurkii 1992, baahinta dowladda, dhisidda dal federaal ah, dowlad goboleedyada oo la siiyey awoodda ay ka talintooda iyo joojinta amxaarayntii shucuubta kale ku socotay. isbeddelka Itoobiya ka dhacay 1991 waa guul iyo fursad ballaaran oo u soo hoyatay shucuubtay amxaaradu xoogga ku qabsatay. qowmiyadihii dareemayay inay yihiin muwaadiniinta darajada labaad. isbeddelkani wuxuu siiyey fursad ay ku hanan karaan muwaadinimo loo siman yahay Itoobiya dhexdeeda, ama ay ku yagleelan karaan dal iyaga u gaara. midhaha ugu weyn ee isbeddelkii 1991 laga dhaxlay waa dal federaal ah oo ay wada leeyihiin quruumo iyo dowlado dastuur ku wada jooga. isbeddelkan ayaa seeska u dhigay wacyi ahaan iyo dastuur ahaanba isbeddelkii dhashay 2018 kadib markii la waayey himilooyinkii la quudaraynayay, cudurrada dilayaasha dowladnimaduna ku bateen isbahaysigii talada hayay. loolankii qotada dheeraa ee soo jireenka ahaa ka sokow isbeddelkan waxaa ka dhashay saluug isbiirsaday iyo quus laga gaaray himilooyinkii la quudaraynayay intay xukunka haysay jabhaddii EPRDF. waxay qaaday tallaabooyin ay dhaqaalaha ku kobcinayso, laakiin dhanka siyaasadda laga bilaabo 2005 waxay qaaday tallaabooyin ay awoodda ku urursanaysay, mucaaradka ku muquuninaysay, saxaafadda ku caburinaysay, kaalinta bulshada rayidkana ay ku tirtiraysay. waxaa ku dhacay cudurrada kaligitaliska, musuqmaasuqa iyo eexda
oo aalaaba ragaadiya cid kasta oo xukunka ku raagta. qiyaastii 10 sano u dambeeyay xukunkeeda, jabhadda EPRDF waxay ka shaqaysay siday u wada qaadan lahayd kuraasta baarlamaanka oo 547 kursi ka kooban, una ceejin lahayd xisbiyada badan ee uu horseeday isbeddelkii 1991 doorashooyinkii baarlamaanka ee 1995 ilaa 2000. jabhadda EPRDF waxay heshay aqlabiyad weyn, ha yeeshee doorashadii 2005 waxaa ku soo baxay mucaarad gilgilay tiro badan oo kuraasta ka helay. jabhadda EPRDF natiijadan way liqi weyday. waxay ka shaqaysay sidii ay afka ugu dhigan lahayd dhammaanba kuraasta baarlamaanka doorashadii 2010. EPRDF iyo isbahaysigoodu waxay heleen 546 kursi, waxaa ka baxsaday 1 kursi oo keliya. doorashadii xigtay ee 2015 dhammaan kuraastii waxaa wada helay EPRDF iyo xisbiyadii ay bahwadaagta ahaayeen. labadii doorasho ee 2010 iyo 2015 waxay tilmaan u yihiin siduu u wiiqmay hanaankii xisbiyada badnaa. waxaa loo arkay nidaam keligii talis ah oo awoodda sii urursanaya. waxaa lagu quustay isbeddel ku yimaada doorasho, taasoo horseeday kacdoon shacbi. isbahaysiga EPRDF oo ka koobnaa 4 xisbi waxaase u awood weynaa jabhadda Tigreega ee TPLF. haddii Abyssinia awooddu ku urursaneed Amxaarada, xilliga marba ka dambaysa awooddu waxay ku soo ururaysay gacanta Tigreega oo tiro ahaan ka yar Amxaarada. musuqmaasuqa iyo ku tagrifalka awoodaha iyaga ayaa looga haray xilliga. bilowgii 2014 ayaa dowladda federaalku soo bandhigtay qorshaha ballaarinta caasimadda Addis Ababa oo dhulbereed ka tirsan gobolka Oromiya ku darayay Addis Ababa. kacdoomo looga soo horjeedo ayay ardayda jaamacaduha Oromiya bilaabeen Abriil 2014. waxay dowladdu bilowday inay khasab ku fuliso qorshaha November 2015. kacdoonkaas ayaa sii laba kacleeyay, wuxuuna ku sii fiday gobollada Oromiya iyo Amxaarada. waxay isu rogeen burkaano qaraxday. waxaa ka dhashay dhimasho, dhaawac, xarig iyo burbur hanti. dowladdii federaalku waxay ku khasbanaatay in bishii Janaayo 2016 ay faraha ka qaado qorshihii ballaarinta caasimadda. kacdoonaduse ma joogsan. dowladda dhexe waxay isku dayday inay xoog militari ku xakamayso. waxay soo rogtay xaalad degdeg ah Oktoobar 2016. waxba wayse tari waayeen arrimahaasi. kacdoonadii waxay gilgileen hoggaankii siyaasadeed ee Itoobiya. Haile Mariam Desalegn, ra'iisul wasaarihii Itoobiya, ayaa qaaday tallaabo u muuqatay dhanka isbeddel nabadeed. 2018 ayuu iska casilay labadii xil ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo gudoomiyihii jabhadda EPRDF. ilaa 2018 oo baaxaada kadib waxaa dhacay isbeddelkii saddexaad ee Itoobiya muddo nus qarni gudaheed ah. Dr. Abiy Ahmed ayaa loo doortay gudoomiyaha EPRDF 27 bishii saddexaad 2018. 6 maalmood kadibna wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya. kacdoonadan waxaa lafdhabar u ahaa qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada oo ka wada dhiidhiyey xukunkii EPRDF oo dalka ka talinayay tan iyo 1991 oo ay u arkayeen inuu u xiibsiibtay keligii talis. halka awoodda siyaasadeed iyo fursadaha dhaqaaluhuna ay ku soo ururayeen gacanta in yar oo Tigre ah. kacdoonka waxaa sii hurinayay shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarada ku habsatay iyo musuqmaasuqa xididaystay oo xadka dhaafay. waxaa xusid mudan in labadan qowmiyadood ay ku kala arooraan labada garab ee kala maanka Ethiopia. Amxaaradu waa qoladii dhistay imbaradooradii Abyssinia, inta kalena xoogga ku muquunisay, halka Oromadu ugu weyneyd kuwa la qabsaday ee xoogga lagu hayay, lagana ilaaliyay inay xukunka u soo dhawaadaan. kacdoonka qowmiyadaha Amxaarada iyo Oromadu wuxuu ahaa kacdoon ay kulmiso diidmadu, laakiinse ku kala duwan himilada mustaqbalka iyo aragtida. Abiy Ahmed ayaa qabtay xilka siyaasadeed ugu sarreeya. labadii bishii Afraad 2018 ayuu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Abiy Ahmed waa nin ka baxsan Amxaaradii iyo Tigreegii Orthodoxiska ahayd ee dhistay
imbaradoriyadda Abyssinia inkastuu dhinacyo badan kaga milan yahay. dhinaca kalena waa wiilkii nidaamkii talada hayay ee kama iman kacdoonkii nidaamka ku kacay. Abiy Ahmed isir ahaan waa Oromo oo aan weligood awood ku yeelan xukunka Itoobiya. diin ahaan waa Christian Protestant ah oo kuma aroro kaniisadda Orthodox-ka oo qarniyaal badan lafdhabar u ahayd xukunka Itoobiya. waxaa dhalay aabe Axmed Cali oo Muslim ah iyo hooyo Orthodox ah, sidaas darteedna waa markii ugu horeysay ee uu madax noqdo qof aan ahayn xabashi Orthodox ah. 6 bilood ee ugu horeysayba wuxuu qaaday tallaabooyin la taaban karo. wuxuu qaaday xaaladii degdega, wuxuu xabsiga ka sii daayay in ka badan 6,000 oo siyaasi. Juun 2018 wuxuu liiska argagixisada ka saaray ururadii mucaaradka ahaa oo dhan ee Itoobiya iyo dhammaan jabhadihii kale ee xornimo u dirirka ahaa. dowladda Eritrea ayuu u fidiyay heshiis nabadeed oo lama filaan ahaa oo aan marna la filayn. waa tallaabo loo fasirtay inuu ku go'doominayo Tigreega. waa tallaabooyin soo jiitay indhaha gudaha iyo dibadda, una ku mutaystay ammaan iyo bogaadin iyo bilada lagu sharfay. wuxuu ku guuleystay bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize ee sanadii 2019. Abiy Ahmed waayaha ayaa ka daba yimid sanadihii u dambeeyay. culaysyadu waa isa soo tarayeen, waxaana albaabka u soo fariistay arrimo culus oo ka imanayay dalka iyo dibadda labadaba. waa arrimo furdaamintooda ay uga baahan tahay xirib siyaasadeed iyo xeelad dheeraada. isbeddelka saddexaad weli macag dhigan oo waa u socdaa.